شغل الفاضل سؤاشني وسؤال رنتي أفر بدن حدانا هل أشيغو صدح أسبوع يا أفر أسبوع كما بحكرنا لكن وجبعنا يا waxaa laga cabanayaa shaqul faadil gabdhuhu ay ka cabanayaan qaad sigaar balwad fadhi ku tirir qabyaalad iyo inaan ilmihii lala korinaynin gabar ayaa hadda intaas soo qorta laakiin gabdho badan ayaa ka siman oo emailiska aan weegan helnay iyo weegi hore dhammaantood wuxuu qeexayaa in ay ka cabanayaan qaad sigaar iyo balwad oo dhan qabiil ha noqoto fadhi ku tirir ha noqoto ilmihii inaan lala korinin ilmaha lama koriyo ayay leedahay markaan la hadlana hadal wanaagsan iguma jawaabo wuxuu leeyahay naabax ama joog ayuu leeyahay ay leedahay marka dhibaatadaas ayaa ay haysataa shaa'iladan keliyana maahan sidaan kuu sheegay runtii waa gabdho badan oo arrimaha ka cabanaya mid ka mid ah waxay kusii dartay hadal jacayl ah iyo hadal raxmad leh oo naxariis leh ninkayga kuma haysta ayay leedahay marka sheekhul faadil waxaan jecelahay inaad noo dul istaagto arrimahaas ثلاثة أتشوق بسوء تفضل جزاك الله خير وأحسن الله إليك الشيخ الفاضل فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضمركي لهلاقيه أسبابه لو هلاقي لها أي الله سمياه ومضمركي لدوني إلا عقابه ومضمركي لدوني إلا قحيه ومضمركي لدوني إلا كرضاضيه dalkeedana la qabsado diinteedana lala dagaalamo dadnimadeedii iyo nakhwadeedii iyo jiritaankeedii iyo dareenkeedii dadnimana marka la doonayo in la baabi'iyo asbaabo loo soo mara ayaa jira asbaabahaasi noocyo badan weeye waxaan isleeyahay anugu aragtidayda gaaban waxaan isleeyahay ummaddaas Soomaaliyeed in la baabi'iyo waa hore oon haddaba ahayn oo dadkan hadda nool ayna dhalanin ayaan isleeyahay horta in laga shaqeeyey waa midaan ku qaracsanahay wey waxyaabaha lagaga shaqeeyey marka la daraaseeyeyna waxa weeyaan bahalka la yidhaahda qaadka caleentan geed qaaqlaha ah ee ummaddii dilootay ee diintoodii dilootay ee dadnimadoodii meesha iyo raganimadoodii iyo fikirkoodii iyo maxalle khiiradoodii dadnimo iyo diin ahaan iyo dal ahaanba u dilay ilkahoodii dilay caqligoodii dilay waalay in badan oo kamid a oo dhaqaalahoodii dilay ilaa markii dambe dalkoodii la qabsaday ilaa markii dambe caasimadoodii la qabsaday xataa al'aanna waddankii la haysto waxaan aaminsanahay waxa waddankaa loo soo maray ee lagu qabsaday waxa weeyaan koow qaadka ayaa ka mid a mataqaanaan inta diyaaradood ee maxaa la yidhaahdaa Ethiopia iyo Kenya ka timaada labada dawladood ee Soomaalida ku hareeraysan ee dariska la ah dadkaasi ma cunaan qaad xagee lagu beeraa yaa cuna qaadka diyaaraduhan maxay wadaan haddii laydinkaga sheekeeyo waabad ogtihiin arrintaasi waa tacajubaysaan diyaarado caleen ah ayaa loo keenaa yaa subxaana allah war caleenta xoolaha cuna war caleenta xoolaha iyo awrta iyo geela iyo lo'da iyo dameeraha yaa intii balka loo soo jaro caleenta loo duurka looga keeno ayaa la cuni jiray waxaasaa cuna laakiin Soomaalidii waxaa laga dhigay xoolo ayaa laga dhigay yaa xoolo ka dhigaya laba dawladood oo Christian ah orthodox ah ayaa xoolo ka dhigay Soomaalida markaas intii meelo lagu xaraystay ayaa ragga xero loo ooday markaas waxa soo caleena baa saa loo cunaya markaas maxaa loogu barxay oo loogu daray oo loogu qasay qabaliya subhanallah maxaa kale lagu suugay qiiq waa inta ay gabdhuhu ka cabaadayaan waxa weeyaan waa qaadkii markaas qabaliyadina la yiri kooxaatihiin reer hebel iska ilaaliya idinkuna reer hebel iska ilaaliya haddana duwaylaad yar iyo gobollo loo sameeyay xuduudo yar baa loo sameeyay wada yar inta loo jeexo yaa la dhihi cadow kale ma lihidiin cadowgiina waa reer hebel wadadaas aanu idin jeexnay yayna idin soo dhaafin halka waxaad hub haysaan oo aad wiilal haysaan meesha yar ilaashada
haddii kale reer hebel baa idin qabsan doona. waa qabaliyadii oo hadda maxaa la yidhaahdaa qaabab kale loogu sameeyey oo qabaa'ila loo abaabulay oo dawlado lagu magacaabay oo intaasoo hub iyo intaasoo diblomaasinnimo iyo intaasoo maxaa la yidhahdaa diyaarado aad aragteen waddankii qolo walba goonidooda in loo qancinayo dhaqaalahooda iyo hubkoodana loo siinayo. kullu daalika waxaan isleeyahay asal waxaa u ah qaadka, asal waxaa u ah qabaliyada, asal qaad iyo qabali ayaa u ah. dabcan markaasaa diintii baa fasahaaday oo dadkii baa fasahaaday oo dalkii baa fasahaaday. fasahaadkaa qayb ka mida qoysaskii. marka burburku meeshuu qoysasku kaga imaanayo halka. ummadda soomaaliyeed dhaqan bay lahaan jirta, reer is haysta oo furitaanku aad u yar yahay oo dhaqan cajaa'ib badan oo diinta ku qoofalan haysta ayay soomaalidu ahaan jirtay. oo sodogii iyo seedigii iyo dumaashigii mid walba shuruuc iyo awood gooni ah iyo nidaam ay kala leeyihiin. markaase waxaa loo sameeyey si aan loo kala xishoonin, reeruhuna u dumaan, talaaquna uu bato, kadibna ay carruurtu dhumaan, ninkiiyo islaamtu ay kala yaacaan, ayaa loo sameeyey. asalna qaadkan ayaa u ah. sidaa daraaddeed gabdhuhu inay calaacalaan, gabdhuhu inay ooyaan, hoosu ooyaan, oy kor u ooyaan, oo ilmihii dhalaan, kadibna ay maantood ayagii wadaan, iskuulka geeyaan, qur'aankii geeyaan, ee la soo ciyaaraan, cuntadii u kariyaan, dhakhtarka geeyaan, la sheekaystaan, macallimiin guriga ugu qabtaan, ay daba ordaan maanta oo dhan. aabbihii dhal awey abi ummi ayna abi, hooya aabbahay awey. 2000 ba ahayd baan u malayna qisadaas markaan duubnay. ummi ayna abi, hooya aabbahay awey. war aabbaw xaggeed aaday? aabbaan carruurtii biilanayn oo aan ka warqabin oo intuu dhalo un meel ku xaroonay. so cajaa'ib lala yaabay ma nin dhan oo meel ku xaroonaya, so wax la yaabo oo caleen cunay. war awey aabbanimadii, war awey mas-uuliyadii,